بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهدسك الله تبارك وتعالى استغانا ويديسانينا التوفيق ده يهينو وحي خيرنا وافجيوه تلفوننا naga dabiya wash ku sawiraysan faralays fadhigeena caawa sidii hore loo ilaamiyay wuxuu ku saabsan yahay ama cinwaankiisu uu yahay kashfu al-qinaac an haqiqati jamaa'ati as-saadi'una bil haqq وعدين لعدينيو أما داها لغا فيديو كوحدا لبحذي الصادعون بالحق سيدا نكسونا هيبا لوضا سعنو مالماهم دنبي براها بلشدو كوكولانتو وحاكسو كردي كوح مقعا لبحذي الصادعون بالحق oo isticlaamiyay afartii bishii Rajab 1438 oo waafaqsan labadii bisha Abriil 2017 kooxdaasi diiniga ah ama ururkaasi iclaankiisu wuxuu ka baxay Masar waxaa ilaamiyay oo laba bayaan oo isdaba yaala akhriyay ninka amiirka u ah ururkaas ama jamaacada oo ay magaciisa ku sheegeen Mustafa Kamil Ahmed kadibna waxaa ka dambeeyay in bayaanaadkii lagu turjumo luqadda Soomaaliga ah oo ay kooxo ururka ka tirsan inay ka istaagaan oo social media ka soo galaan magaalooyinka Soomaalida sida magaalada Muqdisho Garowe iyo Hargeysa kooxahaas oo sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururkaas xubno ka yihiin beecana kula jiraan wadaadka aan sheegnay Mustafa Kamil Ahmed dadka iyo ummadana ay ugu yeedhayaan ururka in laga mid noqdo ummadda Soomaaliyeed ay ugu baaqayaan kaligood ma aha meel kale oo badanna sidoo kale kooxo yar oo sidaas oo kale ah iyaguna sida isu iclaamiyay ama sheegtay inay ururka ka tirsan yihiin sida Liibiya oo kale khaliijka meel ka mid ah وهكذا waxaan shaki ku jirin arintaasi inay tahay arin munassaq ah oo wax la isla ogyahay oo in wadaadkuna bayaanka akhriyo meel kale gedisanna marka taageero laga muujiyo kooxo yar ah waa arin tamwiih ba ku jira bimaana in la muujiyo oo dadka loo muujiyo ururku inuu yahay urur ballaaran urur caalami ah oo jinsiyad kala gedisan leh oo meel walba jooga tamwiih noocaas loogu talagalay in meel kala gedisan laga hadlo oo ay ka sheegtaan inay ururka ka tirsan yihiin waa afasoo kordhay ama horay u jirtay oo muuqatay u baahan marka in la dul istaago waagii hore hadduu wadaad iska hadlo ama kooxi wax sheegato wax urursan buu iska ahaan jiray laakiin meediyaha warbaahinta social media ayaa hadda wuxuu ka dhigay adduunkii oo dhan hal tuulo oo nin walba badeecadiisa uu keensanayo suuqeeda si fudud afkaartu u faafto la isu gaarsiiyo nin walbana uu wixiisa ku faafsado sidii hore marka waa ka khatar badan tahay
taasina waxay u baahan tahay kolba wixii soo kordha in ummadda laga baraarujiyo oo si ayna u qaldamin oo in badan oo dhalinyaradeeda khaasatan ka mid ah iyagoo khayrdoon ah si aynan u kadsoomin oo aynan meelo khaldan ugu dhicin waxaan markaa dul istaagaynaa bal kooxdaas taariikh ahaan xagee ka soo jeedaa waxaan ka hadli doonaa afkaartooda waxaynu tilmaami doonaa wadaadka amiirka u ah muxuu yahay waxaan tilmaami doonaa bayaanaadkii ay akhriyeen labadii bayaan ee kala dambeeyey maxaa ku qornaa maxaase diinta waafaqsan maxaanse waafaqsanayn ururkaas taariikh ahaan marka la yidhahdo fikirku waa xambaarsan yahay wuxuu dib lagu noqonaynaa qarnigii tegey ayaa waxaa sida la ogsoon yahay reer galbeedka ayaa caalamul islaami kusoo duulay bilaadda muslimiinta badankood ayuu qabsaday reer galbeedku qabsadeen oo gumaysteen khilaafadii muslimiinta khilaafa alcuthmaaniya ayaa ilqeeyeen oo meesha ka saareen waddamadii muslimiintana way wada qabsadeen inta badan kadib waxaa bilowday caalamul islaami ka bilowday xarakaadka lagu magacaabo alxarakaat taxriiriya xarakaadkii gomanimo doonka ama xornimo doonka oo la dagaalamay muxuu ahaayey gumaysigii reer galbeedka la dagaalamay muddo dagaalku markuu soconay reer galbeedku waxay ku qasbanaadeen inay wadamada ka baxaan laakiin waxay uga tageen meeshoodii oo xilkii awooddii u dhiibeen kuwa iyaga la shaqeeyo daba dhilif ah oo iyagu soo tababareen iyaga afkaartoodii wax badan oo ka mid ah xambaarsan ayay u dhiibeen in badan oo ka mid ah waddamadii muslimiinta kadib caalamul islaami waxaa bilaabatay markii xaaladdu ay xumaatay waxaa bilowday xarakaad islaami ah dhaqdhaqaaqyo islaami ah ama jamaacaad islaami ah oo bilaabay inay ka hortagaan ama waajahaan mushkilada haysato muslimiinta oo ay diintoodii dib ugu soo celiyaan islaaxiyaan ayagoo dareemay dhibaatadu meeshay ka timid asalkeedu inuu yahay diintoo laga fogaado saas daraaddeed ummadda in diinta lagu soo celiyo sidaana cisigeedii iyo karaamadeedii u soo noqoto xornimadeedii ula soo noqoto muxuu ahaayey xarakaadkaasaa bilowday xarakaadkaasi markay bilowdeen dariiqa ay marayaan ooy u marayaan hadafka ay doonayaan inay xaqiijiyaan ayaa marka kala duwanaaday qoloba meel bay ka tustay kama hadlaya hadda duruqdaa la maray iyo wasaa'ishaa la maray maxaa qaldanaa maxaa saxsanaa kee saxaa kee khaldanaa hadda kama hadlayo laakiin masale taariikhi ahaan aan u sardinayo ayib waxaa ka mid ahaa marka xarakada la yidhaahdo alikhwaan almuslimuun oo masar laga asaasay uu asaasay xasanulbanna xarakadaas alikhwaan almuslimuun oo ka mid ah xarakaadkii markaa kacay kuwii ugu horreeyey taqriiban ka mid ahayd waa laga horreeyey ayaa kadib waxaa bilaabatay in ay xoogga saaraan oo iyaga ka tusto diinta meesha laga soo galay iyo aafada meesha asalku ah waa xukumka waa dowladda iyo siyaasadda iyo garsoorka iyo xukumka sidaas daraaddeed waa inaan xoogga saarno sidii xukumka lagula wareegi lahaa sidaana diintii iyo dhaqankeedii iyo axkaamteedii iyo qawaaniinteedii iyo loo soo celin lahaa halkaasay iyagu xoogga saareen meeshaa waxaa timid marka inay isku dhacaan xoogaa kadib ay isku dhacaan ayaga iyo dowladdii masar ka dhisnayd khaasatan sittiinaadkii khamsiinaadkii ilaa waqtiyadaas bilowyadoodii inay isku dhacaan ayaga iyo dowladdii meesha ka dhisnayd ayib
asbaab fara badan baa keenaysay in ay xarakaadka islaamiga iyo dhaqdhaqaaqa islaamiga ay istaagaan oo fasaadka iyo fisqi iyo ilxaad fara badan oo mujtamacaadka islaamiga ku soo kordhay baa jiray oo markaasi cid haba yaraatee dowladaha iyo andimada taaganna aynan dan ka lahayn in badan oo kamida ama ayba qaarkood taageeraya xarakaadkii markay istaageen waxaa la bilaabay in lala dagaalamo oo loo arko in badan oo iyaga kamida inay u socdaan inay xilka ka qaataan inay kursiga kala wareegaan madaxdii markaa xilka haysa kadib waxaa bilowday in la isku dhaco ninkii tabarta yaraa ayaa markaa wuxuu noqday mid la dilo iyo mid xabsiyada gala iyo mid carara xabsigii markii la galay ayaa waxaa dhacday haddana si naxariis darraa in loola dhaqmo oo garaacis hadday tahay koronto in lagu gubo hadday noqoto naxariis darro tacdiib fara badan in lagu sameeyo waxaa wakhtigaa isaga marka bilowday oo iyadana markaa jirtay horeyna u jirtay baan dhihi lahaa dacfi khaasatan dadkaa da'yartay u badnaa dadkii xarakaadka galay aqoon darro fara badan oo dhanka diinta ana waa jirtay oo aqoon badan sida hadda muxuu ahay wax loo bartay oo diintii loo bartay ma jirin aqoon darro fara badan baa jirtay khaasatan usuushii salafka iyo kitaabka iyo sunnada iyo aad bay dadka ugu yarayd garashadeedu xaaladda iyadaa waxay keentay marka xarakadii ikhwaan muslimiinka markay dowladdii jamaal cabdinaasir isku dhaceen in marka xabsiyada la geliyo rag fara badan oo jamaacada ka mid ah hoggaankeedii dhallinyaradeedii in xabsiyada lagu guro xabsiga gudihiisa iyo ciqaabtii ka jirtay iyo naxariis darradii iyo wixii lagula dhaqmayay dadkaasi xabsiyada ku jiraay dhallinyaraduna aqoontoodu iska yartoo aqoon badan aysan lahayn xamaas badan oo diineedna ku taagan yahay ayaa marka waxay dhalisay inay timaado su'aalo ah maxaa laynoo dilayaa maxaa laynoo xidhayaa maxaa sidan laynoogu cadaabayaa kadib jawaabtu waxay noqotay diinta darteed kadib waxaa soo baxday inay noqoto inay yidhaahdaan dadkan sidan inoo galayay diin darteed inugu laynaya ee inugu xidhxidhahaya ee sidan ina yeelaya ma muslim baa horta mise waa gaalo su-aashaasaa dhalatay dhallinyaradii dhexdooda kadibna markiiba waxaa soo booday fikrad dhahaysa nimankani islaamba ma noqon karaane waa gaalo waa dowladdii iyo nidaamkii iyo xukaamtii waa halkaasaa marka waxaa ka dhalatay sujuunta dhexdooda iyo xabsiyada dhexdooda ayaa waxaa ka abuurmay afkaarta iyo mabaadi'da kooxda marka dambe la bixi doonta jamaacatu lmuslimiin iyagu magacaasay la bixeen laakiin caalamiyan iyo iclaamiyan waxaa loo yaqaanaa jamaacatu altakfiir waalhijra jamaacada dadka gaalaysa in mujtamacaadka laga hijroodoo laga dhex baxana aaminsan magacaasay iclaamiyan caan ku noqdeen laakiin iyagu waxay la baxeen magac la yidhaahdo jamaacatu lmuslimiin waa dhallinyaradii xabsiyada ku jirtay asalkooda ikhwaan muslimiin ka soo jeeday waa khaasatan 1965tii markii xabsiyada ay galeen kadibna sanadkii ka dambeeyey la dilay sayid qutub oo jamaal cabdinaasir iyo dowladdiisii ay dileen markaas ayaa fikirka buduurtiisa iyo ususkiisu taqriiban dhallinyarada in la barwaleeyo oo la bisleeyo laga niqaashaa bilaabatay yacni xabsiyada dhexdooda sanadkii 1967dii ayaa sirdoonka dowladda masar ayaa dadkii xidhnaa dhallinyaradii xidhnay wadaadadii xidhnaa ayaa waxaa laga dalbaday inay taageeraan dowladda jamaal cabdinaasir dowladda waddanka dhisan inay taageeraan markii laga dalbaday 3 qaybood bay u qaybsameen marka qaybay u qaybsameen qayb ka mida markiiba way taageereen way ayideen nidaamkii jiray si xabsiyada ay uga baxaan shaqooyinkoodii ugu noqdaan sidaasay yeeleen
qolada marka xabsiyada waa laga saaro wal iska sidaa intoodii badnaa way iska aamuseen waa taageeraynaana mayna dhihin ma taageeraynana mayna dhihin shibba iska dheh biictibaar inay iyagu xaalatul ikraah ku jiraan waa qasbannahay bay dhaheen sidaas daraaddeed way iska aamuseen qolo saddexaad oo dhalinyaro ahayd ayaa markaa soo jeedintii ahayd dowladda taageera ayaa ka hor yimid oo caariday waxay iclaamiyeen in madaxweynuhu gaal yahay iyagaa isku qanciyey nidaamkan waddanka ka dhisanna inuu gaal yahay kuwii xabsiyada kula jiray walaalahood ahaa ee dowladda taageeray xabsiyadana saa kaga baxayna iyagana waxay dhaheen waa gaalo way ku dareen iyagana islaamka way ka baxeen bay intaa keliya mayna ku gaabsanina waxay yidhaahdeen dowladda gaalada ninkii aan gaalaysiinina isaguna waa gaal dowladdaas sidaa dadka u galaysay ninkii gaalnimadeeda ka shakiya ama gaalo ma ah yidhahdana isagaaba gaal isagana ku dara mujtamacii kalaa soo hadhay mujtamacuna waa gaal bay dhaheen sababtu maxay tahay lianna xukaamtan gaalada iyo nidaamkan gaalada gaalka ah ayay shucuubtu raalli ku yihiin oo taageersan yihiin sidaas daraaddeed shacabkuna waa gaalo soonkan iyo salaadan iyo waxay tukanayaanna wax anfacaya ma wax jira maaha fikirkaasi xagee buu ka dhashay wuxuu ka dhashay xabsiyada dhexdoodu ka dhashay dhalinyarada dhexdoodii uu ka abuuray fikirkaasi waa fikirka marka la baxay ama loo bartay markii dambe at-takfiir wal hijra la baxay magaca caanka ku noqday ayaguse waxay isu yaqaaneen jamaacatul muslimiin طيب fikradda iyadoo xabsiga gudaheedii iyo dhalinyaradaasi afkaarta qaadatay ama iska dhaadhicisay waxa ka ahaa injineerka ah afkaartaas oo yaani sujuuntii iyo xabsiyada dhexdooda ku balwareeyay nin la dhihi jiray Sheekh Ali Ismaaciil oo ka baxay Azhar oo ay walaalo ahaayeen nin la dilay Sayyid Qutb oo la dhihi jiray Abdul Fattah Ismaaciil lix nin oo Sayyid Qutb la dilay ayuu walaalkii kamid ah ninkaasay walaalo ahaayeen Sheekh Ali Ismaaciil waa ninka xabsiga dhalinyarada afkaartan marka ugu horeysay qaadanaya ninkii fikradan injineerka ka ahaa ee muhandiska ka ahaa ee balwaradeeda lahaa dhalinyaradana odayga u ahaa wada laakiin waxa dhacday fikradii waxoogaa kadib uu ka noqday dawladdu waa gaalo shacabku waa gaalo ninkan gaalaysiin waa gaal war waxaasi wax macquula ma fikradii waa isaga soo noqday waa ka tagay markuu ka laabtay ayaa fikradii iyo hogaankii xarakada waxa la wareegay dhalinyaradii iyo hogaankoodii waxa kala wareegay ninka caanka ah ee la yiraahdo Shukri Ahmed Mustafa ninka way ninka marka xarakada ku caanbaxay afkaartana marka dambe sii bisleeyay faafinteedana qaybli wax ka qaatay isaga ururkii la wareegay Abu Sa'ad baa la dhihi jiray dhalinyaradii ikhwaanu muslimiinka ka tirsanaa buu ahaa waxa la xidhay sanadkii 1965 baa la xidhay oo waxa loo xidhay inay jamaacada ikhwaanu muslimiinka ka tirsan yihiin darteed baa loo xidhay waxa mulfit ah oo xusid mudan marka wiilkaasi uu xabsiga galayo afkaartan ururkana uu balwaraynayo cimrigiisu wuxuu jiray 23 sano jiray u fiirsado 23 sano jira oo wiil dhalinyaro ah hadana aqoontiisu takhasus sharci ama ah intuu xabsiga ku jira soo socota ayuu wuxuu qaatay shahaadada jaamacadda wuxuuna ku takhasusay cilmiga beeraha waa dhalinyaraha ahaadee aqoontiisu aqoon sharciya ma cilmi beeruhu ku takhasusay masaa'isha waaweyn ee halista ana wuu balwaraynaya طيب
sanadku markuu ahaa 1971 hijriga ayaa xabsiga laga soo daayay xabsiga marka laga soo daayay kadibna wuxuu bilaabay inuu dejiyo haykalka tandiimiga ee ay jamaacadu leedahay yaani qaab dhismeedka maamuleed ee ururku uu leeyahay buu markaa dejiyay طيب markaas waxaa loola mubaayacooday oo ballan lala galay oo beeca lagu la galay inuu amiirul mu'miniin maaha amiirul jamaaca kaliya ma kooxdan xabsiga ku jirtay saaxiibadii ururka xubnaha ka kaliya inuu amiir u yahay ma laakiin waa amiirul mu'miniin dhowr wiilo xabsi ku jirana meesha ku haysta mu'miniinta dhan amiir buu yahay jamaacada inuu isagu hoggaankeeda yahay ayaa barka beeca lagu la galay sanadka isaga ah muddo kadib adiga warka xabsigu hadana galay waa la soo daayay wixii siibuu watay waa sii faafiyay muddo kadib ayaa waxa lagu tuhmay waxa la dilay ninkii ahaa wasiirka awqaafkii arrimaha diinta ee Masar oo la dhihi jiray Sheekh Hussein al-Dhahabi ayaa la dilay si qarsoodiya loo dilay kadibna waxa lagu tuhmay inay iyagu dileen markaas maxkamad la saaray boqolaal kamida ururka xubnihiisi sanadku markuu ahaa 1977 miilaadiga ayaa 5 kamida hogaankii xarakada waxa lagu xukumay dil waxaana kamid ahaa ragaas Shukri Mustafa wiilkii yaraaye odayga uu ahaa xarakada yeeniraad Maahir Abdul Aziz Bakri kadibna waxa dil lagu fuliyay oo la dilay sanadkii bishii Maaris 30keedii 1978 ayaa waxa la dilay Shukri Mustafa iyo ragii xarakada hogaaminayay qiyaadaadkeeda ahayd ayay dawladda Masar leysay intaas markay dhacday kadib xarakadii iyo ururkii mabaadi'da rumaysnaa waa si sharxi doona mabaadi'doode waxay bilaabeen marka inay isqariyaan dawlad bay la dagaalameen gacad adagna waa lagu qabtay waxay bilaabeen marka kadib inay isqariyaan oo si qarsoodi ah ay dacwadoodii u wataan waxa kale oo bilaabeen inay afkaartooda banaanka u masaafuriyaan oo Masar ka saaraan oo caalamka intiisa kale loo kala diro ayagoo ka faa'iideysanaya dhalinyarada Masar iimaanaysa waxbarashada u iimaanaysa inay la xiriiraan si qarsoodi iyo khaas kadibna afkaarta ka dhaadhiciyaan khaasatan Masar xilliga waxay ahayd caalamul islaami inta badan Azhar iyo meelaha cilmiga loo raadsan jiray mowqic muhiim ay ku lahayd halkaas marka wixii yimaadaba kaga faa'iideysan jireen afkaarta si hoos intay uga dhaadhiciyaan ayaa marka caalamka lala kala aadi jiray sidaas waxa ku faaftay afkaarta loo yaqaano at-takfir wal hijra asalkeeduna halkaas ay ka soo bilaabatay kadibna sidaas ay caalamka ugu faaftay طيب tawasi good Soomaalida aanu nimaadno marka inaga goormayna soo gaadhay fikradani xilliga ay deegaanada Soomaalida soo gashay waxooga khilaaf baa ka jira laakiin intaan arkay waxa loo badan yahay qarnigii tagay 70-adiisii aakhirkeeda 78kii 77 meelahaas in ay Soomaaliya soo gashay fikradani waxaana soo galiyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo Masar tagay qaar baa dhahaya afkaartan halka ka soo qaatay qaar waxay leeyihiin ma wadaad kale oo la yiraahdo Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud oo xarakatul ahli xaraka la dhihi jiro Soomaaliya Muqdisho marka ka jirtay oday ka ah ayaa Sacuudiga wuxuu kula kulmay niman Masaari ah oo fikradii xambaarsan bay meesha isku arkeen markaasay ku qanciyeen uu soo noqday isagoo fikradii xambaarsan markaasuu Muqdisho la yimid ma Masar baa dhalinyaro tagto ka keentay ma wadaadkaasa keenay adiga xilliyadaasi ayay fikradu ku soo biirtay deegaamada Soomaalida khaasatan magaalada Muqdisho oo marka ahayd muxuu ahaayay meesha thiqalka uu yaalo ahay kadib waxay bilowday fikradu inay ku faafto dhalinyarada Soomaalida oo xamaas badan marka qabay aad u xamaasaysna xamaasad diineed qabay ha ahaatee aqoon darro far badan ay haysay oo aan diinta aqoon badan u lahayn waxa saacideeyay afkaartaasi inay faafto gaalaysiinta muslimiinta in la gaalaysiyo
mujtamaca Soomaaliga waqtiga waxa saaciday inay ku faafto dhalinyaradu ay qaataan mowqifkii xukuumadii militariga ahayd ee wadanka ka dhisnayd xilligaas mowqifkii ay istaagtay iyo mumarasaadkeedii diinta ka horjeeday ayaa saacideeyay xamaas badanna geliyay dhalinyarada afkaartan inay faaftana qayb ay ka ah khaasatan markay soo saartay waxa loo yaqaano xeerka qoyska ama ahwaalu shakhsiya oo dhaxalkii ay faragelisay shariicadu dejisay oo ay ku dhawaaqday rag iyo dumarku inay sameeyeen oo ahkaamtii guurka iyo furitaanka ay faragelisay bal madaxii dawladdu uu bilaabay inuu ku jeesjeeso aayadihii dhaxalka wadciga noocaas oo kala markuu abuurmay qayb wuxuu ka noqday xamaas farabadan iyo caadifo farabadan dhalinyaradu inay qaadaan oo nidaamkan dhisan iyo mujtamaciisa iyo kulli iyo afkaartu meelahaas oo kale ku xurata طيب المهم culimadii markay afkaarta ka hortageen iyo qaab dhaqanka qaldan ee nidaamkii markaa dhisnaa uu diinta kula dhaqmayay iyo isbedelka uu doonayo inuu diinta ku sameeyo mabaadi'deeda asaasiga ah markay culimadii ka hor yimaadeen oo yiraahdeen ma saxsana diinta lama bedeli karo nidaamkii shuuciga ahaa wuxuu noqday jawaabtiisu inuu culimadii ka dhigo wuxuu laayo iyo wuxuu xabsiyada geliyo oo muddooyin kale gadisan uu ku xukumo طيب طريق bay ahayd waa la yaqaanay sideedabana afkaarta quluwiga ee xadgudubka ku salaysan waxay dhalataa oo ka abuurantaa inta badan oo ku kortaa oo ku barbaartaa bi'aadka ay ka jirto iddihaadku ka jiro bi'aadka gaalnimada iyo fasaadka iyo fisqiga ku badan yahay mas'alada labaadna marka labaadna muxuu ahay dadkii waxani ma saxsana yiri xabsi iyo dil iyo iddihaad iyo eriyid iyo dabagal iyo xaalada noocaas oo kala markay abuuranto waxa abuuranta xaalad la yiraahdo xaalad loo yaqaano raddad ficli la yiraahdo oo muxuu ahaay iska celiya raddad ficligaasi waxay keenaysaa marka inay iyaduna dhanka kale istaagto lan quluwigu dhalaa يعني wax weeyaan markii nidaamka iyo dawladaha iyo iyagu quluwi iyo xadgudub sameeyaan waxa dhalanaya tayaar dhanka kala oo isagana xadgudub ku salaysan oo ka soo horjeeda xalgudubkii marka wuxuu abuurmay iyo andimadan quluwiga xarakaadkan quluwiga ku salaysan arimahaasa saacideeyay in ay dhalinyaradii Soomaalida dhexdeeda ku faafaan waxa dawr ku lahayo kaalin weyn ku lahaa sidoo kale inay fikradu dhalinyarada dhexdeeda ku faafto aqoon yari jirtay saan horeba u tilmaanay oo kutubta khaasatan kutubtii salafka iyo kutubtii aymadu qoreen iyo usuusha muhiimka ee diinta iyo xaaladahan oo kale diintu qaabkay u cilaajisay aqoontaasi inta badan ma jirin waxa kale oo dowr muhiim ku lahaa afkaartaasi inay faafto kutub markaasi wadanka soo gaadhay oo rag ikhwan muslimiinka kamid ah ay qoreen khaasatan kutubtii Sayyid Qutb oo kale kutub waxay ahayd iطلاقaadkeeda iyo kalimaadka isticmaalayso iyo in badan oo kamida ay ka muuqato mujtamacaadkan gaalaysiintooda oo hadda kalimaad far badan oo arkayno ku isticmaalayaan bayaanaadkan hadda ay akhriyeen waa kalimaadkii kutubta ku qorayd kutubta marka Sayyid Qutb waqtiga wadanka soo gashay oo dhalinyaradu akhriyeen qayb bay ka ahayd afkaartan xagjirnimada ama quluwiga ah in ay wadanka ku faafto sida kitaabkiisi macaalim fi tariiq oo kale nahwa mujtamac islaami oo kale al-adala al-ijtimaaciya fi al-islam khasaa'is at-tasawwur al-islami kutubta akhrinteedu saameyn weyn bay lahayd iyo aqoon darrada muxuu ahaayay jirtay caamilka kale muhiimka wuxuu ahaa sidoo kale waxa muhiimadu waxay tahay markay afkaartaasi ay Soomaaliya soo gashay culimadii Soomaaliyeed way ka hortageen خاصة علماء سنة ولا واجهي ولا جهر تجي ولا رديي يعني وحوي كتبت السلف رضوان الله عليهم يوحي لقى قرني يبالا فافيي خاصة رجي كيم الجامعات كالسعودية وهو الريو الله ونحرست شيخ عبد القادر نور فارح شيخ عبد القادر قعمي iyo rag lamida ayaa markaasi aad uga hortagay afkaartaas dhalinyaro aad u fara badan ilaahay sabab uga dhigay inay ka badbaadiyaan
afkaartaasi muxuu ahaay takfiiriga ah ama quluwiga ah sidaasi ayay marka Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho ay afkaartu ku soo gaadhay sidaasana inta badan muxuu ahaay la sheegaa raggii la caasirayna taqriiban waa joogaan oo culimada iyo raggii xilliga dhalinyarada ahaa iyo rag kale oo odayaalaba way joogaan oo runtii waxa weeye mas'alo u baahan si fiican loo sajilo way kadib waxa dhacday dhalinyaradii Muqdisho qaatay fikirkan takfiirka oo mujtamacu inuu gaal yahay dawladuna gaalad ciddii aan gaalaysiinina ay gaala yihiin afkaartii nooca ahayd waxa dadkii qaatay dhalinyaradii ku qancay laba qaybood bay u qaybsameen meeshan doonaya inaynu soo gaadhno halkan waa laba qaybood bay u qaybsameen qayb waxa weeyaan waa qaybta la yiraahdo kooxda takfiirka ee muuqata ee calaniga in qarsooneyn waana kooxda uu hogaamiyo ninka la yiraahdo Maxamuud Nuur Uthman Kennedy oo ah sheekha kooxdaas amiirkoodana ah muqarraraadkooda diin ahaan ay ka dhigtaana asagu u dajiyay sida kitaabkiisa duruus fi manhaj al-haraka kooxdaasi waxay noqotay koox ayadu waxa ay qabtay fikirkay qabto aan qarsanin iyaduna aan isqarinin xubnaheedana aan qarsanin meelo gooniyana isugu tagto isugu ururta waa kooxda aynu hadda takfiirka rasmiga u naqaano ee hadda xaruntooda ay tahay magaalada Qardho meelo fara badan masaajid ku leh Soomaaliya kamid kooxdaasi waa takfiirka calaniga ah oo waxay qabaan mujtamacu inuu gaal yahay tabacan gaalaysiinta dawladda iyo muxuu ahaayay bay ku bilaabeen kadibna mujtamacay gaalaysiiyeen kadibna waxay gaalaysiiyeen muxuu ahaay culimadii kadibna ururadii islaamiga ahaa kulli waxaan ururkooda ahayn waa gaalo kooxdaasi waa koox muuqato iyadoo warkooda cadaystay oo banaanka yaalo waa kooxda labaad waxay noqdeen niman iyaguna takfiir ah oo qaba inuu mujtamacu gaalo yahay waxaan iyaga ahayna inay gaalo yihiin laakiin way isqariyeen meesha qoladan kale waxooda ay muujisteen oo banaanka dhigteen ayagu way isqariyeen waxay isku qanciyeen haddaynu ismuujinno marxaladu ma saamaxaysee aynu isqarinno si qarsoodi aan waxeenna ku wadanno kooxdaasi waa kooxda bahda wadaadadu ay u yaqaaneen ee caanka ku noqday magaca la yiraahdo takfiirul jaw magacaasi caanka Soomaalida dhexdeeda wadaadada bahda wadaadada aad u yaqaan dadka caamadii aad uga warhayaan kooxdaasi waxa la yiraahdaa oo lagu yaqaan takfiirul jawi baa la yiraahdaa waxa hogaamiye u ahaa oo oday u ahaa wadaadkan marka dhow sheegaynay Cabdulqaadir Sheekh Maxamuud dhalinyaro fara badan ama dhalinyaro koox ah ayaa afkaartiisii ku dhagtay oo takfiir wal hijradii Masar ee hadda ka soo sheekaynay manhajkoodii qaatay isqarinta inay isqariyaan oo muxuu ahaay ay dadka iska qariyaan isqarintaasi macnaheedu waxa weeye mujtamacan maadaama uu gaalo yahay dawladdiisuna gaalada mujtamacuna gaalo yahay wadaadadiisuna gaalo yihiin masaajidda ay ku tukanayaanna ay kanaa'iso kale yihiin masaajid ba ayna ahayn masjid diraar iyo wax la mid ay yihiin masaajid ba ayna ahayn mujtamacii nooca ahaa haddaynu waxeenna muujisanno ma badbaadayno kumana dhex jiri karno waa gaalo see la yeelaa halkaasaa marka waxay noqdeen ayagiina inay kala baxaan qolo iyaga ka mid oo kooxda ka mid ah waxoogaa xaaladii baa ku ciriiriyantay duurkay galeen badaha inay ka malayga ka dabtaan bay bilaabeen ilaa hilibkii dadku waa xaraan oo weelkoodii waa xaraan oo waa gaalo mujtamaci oo laguma dhex jiri karo maxaan sameeynaa waa malay inoo raadiyo markaas waxay galeen inay xeebaha badda galaan oo meelaha malayga ka dabtaan oo meelaha malayga ku shiishaan oo halkaas calaf ka dhigtaan oo mujtamac ka dhaxarraan qoladii nooca ahayd qaar iyaga kamida noloshii adkayd ee ciriiriga ahayd way xamili waayeen
wax la xamili kar ma kadib taasaa waxay sabab u noqotay inay fikirkii ka soo noqdaan oo dariiqa saxda ay manhajka saxda u soo noqdaan qaarna fikirkii bay wali ku sii dhaganaayeen laakiin waxoogaa adaygii bay ka yara bedeleeno mujtamaca aan ku dhex jirno laakiin aynu qalbi ahaan uga go'no waxa la yiraahdo al-uzla ash-shu'uriyya dhaha ana amul faasala ash-shu'uriyya adeer kama dhex bixi karno ma fududee laakiin inagoo ku dhex jirna qalbiga aan ka nacno qalbiga ka goyno marka wax weeyaan qolyahaas isqariyay hoosna ka wata muxuu ahaayay ka wata afkaartoodii ka faafinay oo dadka mid ula xidhiid saaxiibka u tag fikrad hoos ugu sheeg markuu ku qanco ururka ku soo dar hadana mid kale raadi midba mid ha raadiyo wahaakada dariiqaasi marka qaateen inay isqariyaan dadkan iska dhex galaan qoladani marka waxaan soo wadnay wax weeyaan qoladan hadda is-iclaamisay ee aad maqlaysaan waa qaybta dambe ee takfiirka waay halka inaad ila soo gaadhaan baan taariikhda u soo akhrinay fikradu xagee ka soo bilaabatay Masar bay ka bilaabatay markay dawladda isku dhaceen way isqarisay Soomaaliya markay soo gashay oo iyadana la waajahayna qolo ismuujisay oo qardha iyo meeshaas saldhig u yahay oo haddaba muuqatiyo waxay u kala bixeen qolo isqarisay qoladii isqarisay way maanta waxay is iclaamiyeen marka qoladii isqarisay ayaa maanta waxay isku iclaamiyeen as-saadi'uuna bil haqq muddada iyadee marka maqnaayeen ee 40 sano ku sheegan waa dul istaagi doonaaye xagay jireen baa isweydiin leh su'aalma war 40 sano xageed ku maqnaydeen 40 sano dadkay ku dhex jireen laakiin waxay xoogga saareen waxa loo yaqaano majaalaadka yani adduunyada ganacsi saas daraadeed hanti fara badan bay leeyihiin waa urur hanti badan leh magaalada Nairobi waxaa jooga rag tujaar ah oo iyaga ka tirsan oo la yaqaano hanti badan leh ganacsi bay galeen qaar kamida waxay galeen tacliinta maadiga ah injineeriyada caafimaadka muxuu ahaa cilmiga beeraha muxuu ahaa cilmiga dhaqaalaha halkaasay galeen saas daraadeed raggan hadda is-iclaamiyay Soomaalida ah ama iska iclaamiyay Hargeysa ama Muqdisho ama muxuu ahaay meeshii la jiray Garowe iska iclaamiyay waa rag la yaqaano waa raggii waaga hore xubnaha ka noqday ururkaas bay ku jireen oo la garanayay in badan oo iyaga kamid mid baa loo yaqaan ragga iyaga markaad fiiriso waa injineer waa ustaad jaamacadda wax ka dhiga waa ganacsade sharikada maamula halkaas ay ku maqnaayeen marka 40 sano 40 sano halkaas lagu maqnaa inta waxa u dheeray ninkii ay heli karaan oo la xiriiri karaan si hoosoo saaxiibnimo ah inay fikirka ugu qanciyaan oo isaga soo geliyaan waxaad ku garan kartaa inay sidaas tahay taqriiban 40 sano inaysan wax badan injaazinin waxa ku tusaya inta meesha ka soo baxday ee hadda ka soo baxday media ka soo baxday waa rag kontomeeye iyo wixii ka weyn waay inkastoo in badan garka xireen haddana inta garku ku yaalo waa ama waa gad muxuu ahay gad cadde ama waa gad casi wax dhalinyaro ku arki maysi marka muddada iyada ah waxay ku maqnaayeen dhanka adduunyada waxaan marna ka dhex muuqanin nin caalim oo sharci ah nin caalim ah oo takhasus u leh aqoonta shariicada maxaa yeelay waaga ay takfiirka qaadeen ba kutubta yararka inay akhriyaan mooye waxbarashadii diiniga ahayd inay sii kordhisaan oo culimo noqdaan waa ka leexdeen waana afkaarta inta badan lagu yaqaan dadka sida lagu yaqaan way dadka afkaarta quluubiga ku dhaca macnaha marxaladaasi marka waxay rumaysnaayeen inay tahay marxalo qarsoodi ah oo u dhiganta marxaladii ugu horeysay dacwada nabigu bilaabatay oo marxala sirriya ah marxaladaasi markii laga gudbana qaabka iyagu wax u tartiibsadeen waxa ku xigta marxaladii nabiga la yiri sallallahu alayhi wasallam fasda' bima tu'mar marka waxay isku qanciyeen
marxaladii sirrigeed waynu soo dhaafnay hadda waxaynu soo gaadhnay marxaladii fasdac bima tu'mar nabi maxamed oo wixii lagu amray banaanka dhig muuji sidaas daraadood magacooda aad ka garanaysaana waxay la baxeen as-saadi'uuna bil haqq fasdac bima tu'mar marxaladaasaan soo gaadhnay waa marxalada laabanaytee way مرحلة الإذن بالقتال بالله والمرك وينوصل صعوده وتلمامين دون مرحلة دي الله فصيحي لها الدقال لما وضدك الله وحقيقة بالله ويا المركة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هو إذن كحيقة قال هذا أكب بالله حقيقة بالله ويا المركة ومريكا يروش يوحي هذا يا باش ما يقالك أقول ويحيقة وأذيك أي كابل مرحلة مركب ولا سجاه لكن مرحلة هذا يسوق قارين فلسفة دي أدبيات كذا مركب لفيري ومرحلة فصدع بما تؤمر قام كاسي مركب وحط ترتيب سدان سؤال وحل سوى الدين كريا لماذا كحوت ومدينة اسمه تسيو محمود نور عثمان وهو جامي إيه كوحدا إسقاري سي محاول دحي منهج كمركب اللي هذا حقيقة هو فرق وين ومدحي لكن كليه waxay isku faariqa muhiimka wuxuu yahay maraaxisha la marayo iyo qaabka loola muaamaloonayo qoladaasi maxamuud nuur waxay isku qanciyeen marxalada aan marnaba marxaladii kufu aydiyakum baan ku jirnaa oo marxaladii dagaalka wali leenooma idmin ayaga laftooda marxaladaasi maraya laakiin waxay isku qanciyeen diinta wixii aynu hadda ku dhaqmi karnaa ku dhaqano dumarkaan xijaabno masaajid aynu dhisano aynu gooni isu ururino mujtamac muslim oo mu'min aynu gooni u samaysano waxeenan ayna qarsanin qoladaasi sidaas way qoladana waa ka duwanayeen marka isqarinta iyo diintii oo dhaqankeedii iyo muuqaalkii wadaadnimo oo laga cararo muuqaalka wadaadnimo yaan lagu garanin dadka isaga dhex jira waxa la yaab hadda markay ismuujiyeen ayaa Soomaalida kommentiyada ay ka bixinayaan qaar kamid marka akhrid wuxuu leeyahay mid baa wuxuu leeyahay waa la yaabe hebelkani aniga macallin buu ii ah intaasoo sano macallin ii ah waxana kama badareeminba qolo shirkada waxay leedahay war mid kana wax u dhiibanay waan faslinay lama ogeyn qolo jamciyad bay u dhiibteen mid hadduu is sheegay oo macnaha la fasliyay marka yaani wax weeyaan isqarinta inay isqariyaan dadka dhexdiisana ka ugaadhsadaan ayaa iyaga mabda u ah diinta inteedii kalena markay uu dawlad dhalato hal la raadiyo laakiin marka hore koox yaro istarbiyaysa waa inuu asaas ku noqdo sidaasi markii laga tago furuuq fara badan oo u dhaxayso mabda'i ama jirto maxaa yeelay waxa ka dhaxeeya mabaadiida waaweyn aan tilmaami doono inta badan way ka dhaxaysa saan soo tilmaanay maraaxishaasay marayaan marxalad makiyo sirriya مرحلة حكتو فاصدع بما تؤمر مرحلة الصدع وهذا أي رميسين إن مريان مرحلة الصدحاء مرحلة الدجال كالله إدم الدونه أو أي دجال بالله بالدونان وأنا مرحلة بيان كسيدة كتب التلمام يا بيان كالنص كوي بالأوفير صدا وحيري مركو صوت المامي إن يسندعات عنف أهي وروردا دجال لما يا وحبربورين يا وحقرحين يا منهم بينه حيالي أنك وحنا الأمري إن قعمها اللابنا كفوا أيديكم قعمها اللابنا الأمري بيقول مركو صوت المامي كدي باوحو يدي وليس هذا إسقاطا للجهاد في الإسلام ولا للقتال في سبيل الله ولكن لكل شيء حين ولكل مرحلة حكمها والله لم يأمرنا بذلك إلا حين تكون لنا دولة كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مركان لنا هاي أنا وحما قربضنه وحنا ما قرحنه ضد كان مالله إنه ديجود ما بنيسان سيدا الرضا سوكله تا معناه هذا ما هبوا إن جهاد كي ديدنا قتال كي جيت كي إله لقود قال من هنا إن إنكر إنه ديدنا ما لكن وحويان شيء والبوختي بوليه مرحلة الوضبان حكم كذا خاص كيله الله نما أمر أرنتا أو إن دجالنون جهادنا إلا مركي أن دولة هلا مويه سيدي النبي جبا حاصل صلوات ربي وسلام مركم حي سجيا يا إن الدولة دي أدلته كدبنا دولة دي مدينة أو كلا إن أدلته كدبنا دجال كلا بلا
maraaxiishaasay marka wax ugu tartiibsan yihiin waxay noogu xigtay inaynu tilmaano sidoo kale afkaarta itijahaadka noocaas isku dar kuwa Masar ka bilowday ka Soomaaliya u soo gudbay labadiisa qaybood ee kala jabay afkaar ahaan maxay rumaysan yihiin waxay radaan dul maro cunsurka asaasiga afkaartoodu wax weeyaan in ay gaalaysiiyaan waxaan iyaga ahayn wixii aan iyaga ahayn oon ururka ka tirsanayn oon ku abtirsanin inuu gaal yahay waxayna ka bilaabeen inay xukaamtii madaxda gaalaysiiyaan lianna diinta ilaahay waxaan ahayn bay xukumayaan cala al-itlaaq ayagoon tafsiil ku sameyn kadibna inay dadka la xukumayo iyo shacabka gaalaysiiyaan iyagoo leh xukumka gaalnimada ee dawladuhu ku dhaqmayaan iyo qawaaniinta wadciga bay raali ku yihiin shucuubtu waanu tagi doonaa naska hadalkiisa bayaanka ku yimi shucuubtu waxay gaala ku yihiin waxay raali ku noqdeen ahkaamta iyo qawaaniinta wadciga ee dawladuhu xukumayaan sidaasay shucuubtuna gaala ku noqdeen طيب maxaa xiga culimadiina waa gaaloobeen bay dhaheen oo iyaguna maxay ugu gaaloobeen lianna dawladda gaalada ka wada iyo shacabkan gaalada bay xukumi waayeen oo ay gaalaysiin waayeen waa waxa loo yaqaano haddaad garanaysaan at-takfiir bitasalsul waana meesha wax ka bilaabatay dawladda lagu bilaabiyo madaxda dawladda markay ka bilaabatay kadib shacabka loo soo degi oo isagana lagu xukumi calashan raalli buu ku yahay waxan shacabkii markii laga soo gudbana waxaa lagu dari dadka aan xukumkooda ku waafaqsanayn oo gaalaysiinta shacabka aan ku waafaqsanayn culimaha noqdeen ama ururo islaami ha noqdeen kuwaas la raacinaya wahakada qaacidada man lam yukaffir al-kafira fa huwa kafir balamarina marka halkaas waa طيب waxaa kamida usuushooda iyo mabaadidooda kamida cid kasto ay fikradooda u bandhigaan oon aqbalin ama intuu fikradooda aqbala aan ururka kamid noqonin oon imaamkooda beeca la gelin waa gaal haddaad maanta dhan la taagnaato war waxani sax ma ah oo shariicada ilaahay in la xukumo waa waajib oo andimadan iyo dawladahan waxay xukumayaan ma saxsana oo waa in diinta ilaahay loo noqdo oo mujtamacaadka baraarujinayso oo tawxiidka aad saxayso haddaadan ururkooda ka mid noqonin oo aadan amiirkooda beeca la gelin gaal baad طيب كذلك عدي أرك كم من نقطة أو أرك هذا ديب وقبحنا أسونا وقال مرتدى الرضا غلوي أساسي كسمية سواء يكون هو بيسان حتى سمارك هذا أرك هذا إنتاج قشعات كبح ذا ويكد ليه مركا حتى هذا قشوك ما بيحكرت جماعات إسلامية أورات أوراد إسلامية أيها أكتر سيدو كانوا قالوا وأوتجي دورنا هذا البيان كوي مدو ماشى سي ملاحظة إنه كبيحين دورنا إن شاء الله تعالى وحكى لي قبان أوراد نوع عن أفكار تودا كم ده كتاب كإلهي السنة النبي أيها حجاء كلية طيب السنة اللفت هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت إيجا هودو دي فكر كودا إسليهم ويوافق سنتهاي بكقاضنيا انت فكر كودا way ka soo horjeeda isleeyihiin ahadiista kamidana macnaheeda ay leexinay haday daciifin karaan waa daciifinay hadiista inta hawadooda waafaqday ka qaadanay nusuusti quraanka iyo sunnadana waa xasab iyagu tafsiirkiisa u fahmaan sidaas daraadeed cid kasta oo aimada iyo culimada aqwaashooda ama ijmaaca qaata saxaabada ama qiyaaska daliishada ama maslaxa mursala ama istihsaanka أما قول الصحابي الذي مختلف كأهيد أيها أكتوض معتبر كمان بل قار كم إذا وحي قبان إنه قالي إنه يعني قال لي ما يكينش وحكم إذا أفكار توضا أقواش أهل العلم محققين تأه إيو تراث كي بحل كي أي علماء كتجين إلى الصحابة إلى مانت والتفسير له وشرح أحاديث له وأصول له ومصطلح له وفقه له وحي علماء إنه كتجين أكتوض وح قيمة كمله waxa qiimaha leh wax weeyaan naskan bay la tacaamulayaan amiirkoodu sidoo u fasiro bayna ula mucaamaloonayaan waa shay qariib amiirkooda ba tafsiirka iskale mana khilaafi karaan hadda qolyahan u xareysan maxamed Uthman u xareysan qarna iyo meelahan ugu xareysan kutubta ay akhriyaan
وإساقو كو قري مقررات كيسي إساقو قري أيا كتبوا من خلافي كران كون نسيدو كلاوا أمير كودا وحي كي ماذا إيه كتبتو أوتي المملكة وحي كبعزن كتبتي أئمة إيه خدمة دي عقيلة هاي وحك استلاهي أكتوض وحك سوقات مالي سيداس درادي داود حدريمي كرتان ووتي دوناي بيان كآد أركتين والله وضع قيبوت هل قول oo imaam muslim uu leeyahay kumayna soo qaadan hal qawl asagu waliba mukarrar hadal fala badan oo iska soo noqonayo fara badan ba isaga jira hadana ma dalika hal hadal oo nin caalim leeyahay oo soo guuriyeen kuma jiro labada bayaan laana wax weeyaan aimada iyo culimada aqwaashooda iyo tafsiirkooda iyo sharaxoodu agtooda wasan weyn kama laha yaani wax waa mabda مبادئه كمية مبدأ وقوم مبادئه وقوم يسموها كمية وعنصر كاللبادة إن لقيه جرودو مجتمعاتك ما دام يقاليهين مجتمع جاهلي هاي إن لقيه جرودو طيب عزلة داسي أما عزلة مكانية هالنقطة ميل لقى آذو وكاله هالهلو أما عزلة الشعورية هالنقطة محوها هاي قلبك إن آد كقضاء وآد كقرحبها بأنه عاصو كلاه haddii ay heli karaan way sameeysanayaan sida hadda qoliyaha qaarkood kale jirto waxa kamida masaladii tadarrujka oo aynu soo marnay intaasi wax weeyaan marka mabaadiida iyo afkaarta ururadani ay rumaysan yihiin asalkeeduna meesha ka soo bilaabatay aan soo sharaxnay jamaacadan marka as-saadicuuna bil haqq la baxday taariikh ahaan dabageliskoodu halkaas u galaa halkaasina ka soo jeedaan iyaga markaynu u nimaadno bayaanaadkoodan iyo amiirkoodan aan ka bilowno amiirkooda Mustafa Kamil Muhammad Hassan oo bayaanka labada bayaan ba akhriyay walaadkaasi siiradiisa daatiga iyo taariikh nololeedkiisa waxay leeyihiin wuxuu ku dhashay magaalada Qaahira 1936 uu dhashay طيب وميلادك وحو معلن كان نقضي جامعة أم القرى أو مكة كتال شان يلواتن سنة أيو معلن كاهب عليه هاي كلية دليل هذا كلية الدعوة وصول الدين تاريخ دي سمرك اللي دبقلو وذاتك شيخ مصطفى wuxuu ku darmaday jamaacada al-ikhwan al-muslimin ee Masar ayuu wuxuu ku darmaday oo kamid noqdo xubin kamid noqday sanadkii 1952 miilaadiga xubin rasmi ah oo kamid ah ikhwan muslimin ku noqday cimrigiisuna markaa wuxuu jiray 16 sano 16 jir buu markaa iyada sanadkii 1955 ayaa waxa lagu xukumay 10 sano xariga Qaahira طيب xabsiga ayuu wuxuu kula kulmay Sayyid Qutb 1962 ayuu xabsiga kula kulmay sijni iyo xabsi la yiraahdo masracatu turra la yiraahdo halkaasuu kula kulmay wax kaga qaatay أرضي النقضي وللمعلومية سيد قطب ما أهين نين عالم شرعي لكن وحو أها نين أديب أو كصنفا قيبان هذا مفكرين تليلا طيب سان صوت المعنى وكتب ربنا وقرينا عبارات كذا يوحو كو قري قيب بدن بي كان نقطي أفكارتا ضد بدن أي قاتين oo ku salaysan mujtamacaadka muslimka ah iyo waxa ay yihiin wadaadkeenan Mustafa Kamil wala soo daayay markaa kadib xabsiga markuu Sayyid Qutb kala kulmay arday ugu noqday kadib say sheegayaan mar kale hadana la xidhay 1965 uu hadana mar labaad xabsiga galay 7 sano ayuu hadana ayaa lagu xukumay xabsiga wuxuu ka soo baxay 1971 ميلادي طيب وذاتك أرورك هذا إعلان كيسا كرة واقعي وانينكا معان ميشا كفهني والرقي حبسيغا
marka fikradda takfiirka iyo hijradu xabsiga Masar markii fikraddu ay ka abuurmayso ka bilaabanayso iyo raggii ruwaada fikradda ahaa xilligaas uu ku aadan yahay xabsigana kula jiray طيب sida uu sheegayo ururka wuxuu asaasay muasisiintiisu kamid yahay 1973 ururkan hadda la iclaamiyay as-saadicuuna bil haqq bay ayay aaseen intaasi waxa weeyaan waa wadaadka ururka amiirka u ah labada bayaan akhriyay waxa mulaaxad ah oo aan yara mulaaxaday iyo cajabiyay la yaab ila noqday wadaadku 25 sano buu kulliyatu ad-da'wa usul ad-din ma kulliyatu ad-da'wa jamaat al-qura ayu macallinka ahaba ku qoran sida la sheegay laakiin markuu bayaanka akhrinayo waxyaalahan mulaaxadeeyay waxa kamida arabiyada xataa akhrinteeda ma saxayo وهذا غريب عربية نيك اللغة عربية يقانا إيه حركاتك كلماتك وذاتك حتى حركاتك كلماتك حركين توديبو إن بدنو كم إذا كنت منايا وراق للصوق قريب ونكا آخرنا يا أغو ارتجال ما نينكو مركو اللغة عربية أسوون ميلك آخرين إنو محو سرچوغا كتورا هيو والله قرابي موقتها هذا وحكا خلق ضمان لكن نين وراق أخرين حتى وراق ذا مركو أخرين ينسك أو أخرين يو شاشة كالصوبح يو حركيسين إلى أمريكا ما قال مشاشة يكون حركيون وذاتك وما حركيسنا مياه مسوا حركيسين وحركة دي بقلدي ماشا وحا كم وقتا إيقو موقض إنو يهي نين عالم شرعي waxyaalaha taageerayana waxa kamida siiradisa markay ka hadlayeen daatiga ciidu cilmi ka qaatay iyo ciidu sheekh u noqotay iyo meeshuu ka soo jeedo midna lama sheegin waxa laga bilaabay in ikhwaan muslimiin buu xubin ka ahaa xabsi buu galay iyo halkaas laga bilaabay waxay ka turjumaysaa ururadan aafaadka haysta waxa weeyaan waxa majaraha u qabanaya ee dadka luminaya هذا أنت كتوريا ودد أن أقون شرعي على هين علمنا أن كسف إسنين تكفير كي هجرة باللوج يدين ويل كي راي مصطفى الشكري باب الله وكلية محوها هي كسب حي يا كلية الزراعة هي كلية دبيرها كسب حي أقون شرعي أنا الله هين هذنا الصادعون بالحق ayaga markaad fiiriso raggan garxiirka ah muxuu ahaayay saacadu fiirisana Soomaalidu rag badan bay ka taqaanaa oo wadaadadeedii bahda wadaadadu yaqaanaane hal nin oo caalim sharciya kuma jiro su'aal badan markay isweydiin kartaa wareede wardiintan culima ilaahay ku badbaadiyay caamay goormu diin badbaadina uma badbaadin su'aal isweydiin lama waa su'aal muhiim ah caamay isaga badbaado u baahan yaa injineer baan ahay معلم جامعات بان هاي دكتور بان هاي علمي ما وعلمي الدنيا دنك نافعه لكن علمي الشريعه امد لوgu badbaadin laha ma aha kaas seedu madu badbaadinaysa marka adaaba u baahan lagu badbaadiye aafada haysta ururadaasi inta badan quluugiga xadgudub ka galay aafadoodu iyo amraada ugu asaasan haysta saakama طيب inta hadan ka soo gudbo aanu imaado marka bayaanka labada bayaan ee kala dambeeya wadaadku akhriyaan rabaa inaan mulaaxadaad saaro marka afkaarta hadda aan soo sheegnay ururku ma ka tanaasulay ma waxba iska bedelay mise waxba iskama bedelin maxay soo kordhiyeen maxaa bayaanka ku qoran aan isdul taagay bayaanka markaad akhrido labada bayaan ba akhrido uma baahnid inaad aad ugu fiirsato إلى أي كوسو بحان ملاحظات منهجية انحرافات عقدية إيوه ملاحظات كلو فربضان ويقوه الرئيس التناقضات يقوه الرئيس بيان كايركي كوبان واسكهر إيمانيا يا إنو اسكهر إيمادنا وحاكيين يا أقوم در القسلي جهلي بقسلي سي أدان مثلا وحكا سوقاتو اسكهر إيماد كوكوشي راي دور قضب كسوقاتو مكوبي كريم بيان كوحاد أي كوب الله بيان
in ay yihiin koox muslimiinta ka mid ah u fiirsada naxnu waxay leeyihiin nuclinu liljamiic annana jamaacatun min almuslimiin dadka dhan waxaan u iclaaminaynaa inaan nahay koox muslimiinta ka mid ah ayib bayaanka labaad sidoo kale naxnu jamaacatun min almuslimiina lilahi subxaanahu wa tacaala koox muslimiinta ilaahay u hoggaansan ka midaan nahay meeshaa maxaa ka muuqda marka inay muslimiin kale jiraan soo maha oo inay iyaga keligeed muslimiinta ahayna muslimiin kale jiraan soo saas maaha ayib markay u yimaadeen asbaabta keentay inay ururkan sameeyaan oo ku dhawaaqaan asbaabta ku kalliftay markay sheegayeen halkaa markay marayeenna ururkooda waxay ka dhigeen ururkii muslimiinta ma aha urur muslimiinta ka mida maaha ururkii muslimiinta jamaacatlmuslimiin bay iska dhigeen maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah wuxuu leeyahay sababta ururka u aasaaseen markuu sheegay انطلاقا من فهمنا لحقيقة التوحيد وإدراكنا للواقع الذي تعيشه البشرية بجملتها اليوم وإيماننا بواجب ومسؤولية كل من آمن بهذا الدين في العمل على إقامة الإسلام من جديد والتزاما بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل حينما قام الجماعة المسلمة الأولى واستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يعني وحوليه هاي وحان كدو لينا وحان أجيبنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يكوح مسلمات إن للصه أوامرت النفريسة النبي كالسغن أيانو كدو لينا أنه تاكدو لينا أحاديث تاسي محي تهي أحاديث تاسي لما حديث بوكياني حديث وحديث ابن خزيمة ابن حبان يسوع صار النبي صلى الله عليه وسلم أنا آمرك وأنا آمركم بخمس شن شيبان أمر يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم شنطة شيء إلهي باقي أمري وحارد أمر يا آمركم بالجماعة والسمع والطاعة وحارد أمر يا إناد جماعة لازمتان إناد مقشان وديشان والهجرة والجهاد في سبيل الله إناد هجروتان وجدك إلهي كجهادان بان أمر يا فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر نيكي جماعة وحير كدحبها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إسلام كمريكتي سي لقنتي سو كسيبي إلا أن يرجع إنه كسون نقدمه حديث كاسو كان ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم حديث كاسو كان حديث كلاباد نوحو يري هي حديث كلاباد مسلم وريي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية روحي انت أسقوا لقنتي سبيعة كتير oo aan ballan kula jirin amiir jamaaca uu ka wada aan ballan ku jirin ruuxi sida ku dhinta qaabka uu u dhintay waa qaabkii jaahiliyadu u dhiban jirtay labada xadiis anagoo ka duulayna انطلاقا من ذلك كله انت صرنا كدولين كان لزاما علينا أن نقيم جماعة أي وحا لازم نقول نقضي إن استاجنوا جماعة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جماعة سوق قريسة شهادتينك بمدلولها الصحيح معنى هذا الصحد أنا كقريسة طيب سؤال شو عايز مركي هو واحد جماعة مسلمين تكمدانا نصوصا إليه وحان أعسكن جماعة ندا أساسي ديدو ما جماعة مسلمين تكمدا كوح مسلمين تكمدا مياه إسكالي نصوصا مسوحة إسكالي جماعة نظام كأ مسلمين تم التشاء الدولة أبا إسكالي هاو إذا يرد ضلوة العلم مركو النبي يقول لي هاي آمركم بالجماعة أي جماعة جماعة المسلمين هو قال سياسة لي دولة ديوان طيب مركو النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات وليس في عنقه بيعة من بيعة أمير المسلمين مدح المسلمين ده بيعة صلى الله عليه بيعة أمير أرورماه كوح أمير كده
بيعدي سما بدليل أديك هذا أرر كودا بيعدي سآدن قليل وصاع كل ماتو ما ميت الجاهلية دماني الجاهلية ما تقولي ما مركز جماعة المسلمين بان كم منها هذانا النصوص تي جماعة المسلمين تكلي جيده بعد إسكاله مدحه قامين هي الدولة ده أحاديث تدي بان كسلين نيون كأمر قادر نيون أركنا كل سنة هذا الكافية كلا ديروه استصار معلن أو ألف وحبولي هي وحمل الله بضع بعض على جامعة صوارت وتناقض مرة حيسوس صورين جماعة المسلمين مرنا وحي شيئا يعني نيهين جماعة من المسلمين طيب وحاحكت انت ان هلكا كبح احاديث تاس ماشي اي كفسرين اي ماشي صارين وغلط وانا التحريف احاديث النبي قال له صلى الله عليه وسلم النبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه كوح مسلمين تكمدا او أرر oo nin amiir u yahay oo hogaaminayo ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ulama jeedin inuusan ula jeedinna waxa ku tusaysa ahadiistu iyada isfasirayse xadiidka fi sahih muslim buu ku yimid isla xadiidka ay daliishadeen sahih muslim buu ku yaala laakiin uu fiirsada sidoo ku yimid naafi' mawla ibn umar ayaa ibn umar ka warinay wuxuu leeyahay abdullah ibn umar ayaa u yimid abdullah ibn muti' عبد الله بن مطيعنا حلقا ويمانينا حين كان من أمر الحرة ما كان مدينة يدقال كيدي حر مركو دعاي ودقال وحوها فتنة أو ربضا ومقال هذا كدعاي حلقا سويب زمن يزيد بن معاوية مركو حلكة هي وأبيه معاوية انتو أغتك حلكة رضي الله تعالى عنه وحلكة أغتك بالغو كعي ضدكي كو كعي ري مدينة كمدة إذا مو صوك حيستوى كسو دولة مقالة المدينة دقال علوص با كدعاي ولغو هوبتي تاسع وحل وقعة الحر الله يقال حلقة السقعة أيا عبد الله بن عمر وحوي من عبد الله بن مطيع طيب مركز أوحي اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة عبد الله بن مطيع بعدها أبو عبد الرحمن وكوض عبد الله بن عمر بركين أصور دي قبل بركين بالله مركز أوحي عبد الله بن عمر بعدها إني لم آتيك لأجلس أنوغو أما إيمانين إنام فريستدرتت كوغو إيمانين بول محاضرتي أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله وحن كوغو إمد إنام كوشيغو حديث النبي محمد كما قال صلوات ربي وسلام عليه محوية حديث كاس وحوية النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية نبي بانك محمد بانك مقلي بيقول سقوله ننكي مضحدا قعن كسيب وطاعة وذا كبحة إلهي وما لنت قيامة الله كل ما يسقون حجة لهين روحي لنت يسقون لقنتي سبيعة كتير وإمام كمسلمين تي مضح مسلمين تأم بيعة كتير وكوك عسن وحور لنت قابل بشة جاهلية عبد الله بن عمر محوك الله يا مر يا ري مدينة محوك لها الله وهو حديث كوكان وحكلها الله يا يزيد بن معاوية أو حلك مسلمين تهي هكوك حنا هداد كوب حدان أحاديث ترى إذن قبصانيس بحديثها كب حنا جماعة دي مسلمين تي وذا تشركوا دي هكلا تشبيننا ماذا حي محوها الدولة دي النظام كهب محوها هي خلخلها قليلنا تاسو كلها الله حديثكم مركب باب كاسو كوي روايات كيس كلا أما حديث تكلا عدينا سو حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية ومجد خرج من السلطان شبرا ومدح المسلمين جماعة الله قال لي طاي داو جماعة وداد سميستما كوح وداد سميستما أرور اسمك عابي ما أمير كودي مدح وضنا ما أحاديث تاسي ماشى إلى آذين ومل قلله وحقصي عد حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأبو داود طيالسي غير كيسو سارين والنبي صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية إمام إيا مدح إيا النظام السجون هوست جوجين روحي لنتا لمشى جاهلي لنتا مركوا مدح المسلمين تي جماعة المسلمين أيونا محيس كفسرين وذات كودي كفسرين الكاسي سارين حديث تأييدها وانا التناقض طيب
تناقض كاللباد وحويان يوركو ذا اسكهر إيمانية جماعات إسلامية مركي كهالنية والصحة ذا تشوفت إيضاً موقف كأي كقبان وموقف اسكهر إيمانية بيان كلفتي سوكويا له واختقاء ديراضي أي أنه هلقا كتوشين حبين دم إن شاء الله تعالى أنه دم يستري لكن واحد إنه هيسان وأنه كو أفجرني تناقض كي كوبات كي لبادنا بلنتي سوى إنه هبين دم إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.